cadowga dhalinyarada Soomaaliyeed oo koowaad aniga waxaan ku tilmaamaa inuu yahay cabsida dhalinyarada Soomaaliyeed mid kamid ah cadowga dhalinyarada Soomaaliyeed oo koowaad aniga waxaan ku tilmaamaa inuu yahay cabsida waa garanaysaa Soomaa dadka halka fadhiya maalintii iimaanayeen aad bay uga baqi jireen inay hadlaan lana adduunka waxa la dhahaa express yourself naftaada caday qofku naftiisa hadduu si caday karin wax kasta oo cilmiya wax kasta ee aqoona ee ku jira waxa uu tirimayaa yani wax macno uma leh no value sababta cilmiga gudaha kugu jira banaanka ma keenin kartid I remember waxaan xasuustaa markii aan wax ku baranayay dalka Masar waxaa yimaada jaamacadda Azhar gaar ahaan waxaa yimaada dad fara badan oo dunida ka tirsan ay yimaadaan oo wax ka bartaan marka waxaa jira nin Afrikaana oo meesha baranayay markii wuxuu u yimid maamulihii meeshii markii uu deganaayay ayuu xoogay ka xanaaqay waxba uu dhibsaday wixii uu ku cilmiga wixii maalintii dambe ayuu wuxuu u yimid marka ninkii maamulaha ahay oo meesha ugu sareeyay ayuu u yimid asigoo socda markaasuu la hadlay waxaasa dhibkaas ay haysta wixii luqadda carabiga uu ku sheegi laayahay language-ka uu sheeg wax ma sheegi kariyo ma hadli kariyo marka ugu dambeeyay inuu sheegi karin uu dareemay markaasuu dhaa ustaad wax badan ayaa iga buuxa wax badan ayaa igu jira waxaas waxay ku jiraan ha huna garanaysaa soo maana qalbigana ku jira laakiin ha huna waa imaan la yihiin u dhahay maana ninkii maamula wuxuu dhahay iska bax markay ha huna imaan u dhahay maana guriga iska u dhahay hadda wax bay u lugay bimacna maxaa loola jeedaa haddaadan naftaada awoodi karin waxa gudahaada ku jira inaad cabirto aqoon kasto oo aad leedahay macnaheeda iyo value-geeda runtii ma samaynayso